kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada ku xiran barteena YouTube ee Galka Media waxaan warbixinteena Galka Media maanta diiradda ku saari doonaa ciidamadii ku maqnaa Eritrea oo la keenay halka la dejiyay iyo waliba xog qarsoon ayaan halkan kula wadaagi doonaa balse marka hore ku soo biir barteena YouTube ee Galka Media oo ka mid noqo saaxiibada badan ee halkan sida maalinla ah warbixinta uga qaata waa tahay haddii aynu markaasi eegno xarunta xisbiga oo u dhow garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho waxaa ku sugan ayaa la yiri tirada ciidamada markaasi ee ku maqnaa qayb ka mid ah Eritrea kuwaas oo tiradooda lagu sheegay 800 oo askari sida ay xoguhu markaasi tilmaamayaan xubnaha ciidamadan ayaa markaa la rumaysan yahay in ay barbilow u yihiin ciidamo kale oo maalmaha soo socda wadada ku soo jira sida ay xoguhu tilmaamayaan xogta sidoo kale la helay ayaa waxa ay markaasi tilmaamaysaa in ciidamadan xilligan markaasi loo keenay qorshayaal dhowr ah oo ay ka mid yihiin inay qayb ka noqdaan sugidda amniga doorashooyinka dalka gaar ahaan midda madaxweynaha marka la filayo in farmaajo uu ku guuleysto tartanka doorashada oo uu mar kale hanto xogaha sidoo kale waxa ay markaasi tilmaamayaan in guud ahaanba dhinacyada xilligan ciidamadan la keenay sidoo kale ay u badan yihiin saraakiil sarsare oo iyagu markaasi qayb ka ahaa tababarkaasi Eritrea oo ah wadan markaasi ay saaxiib iyo waliba xiriir wanaagsan markaa kala dhaxeeyo marka loo fiiriyo muddadii uu madaxweyne farmaajo xafiiska joogay ayaa la aaminsan yahay in ciidamadan sababaha ay u tababartay ay tahay iskaashigii saddex geesoodka oo ay markaasi bil walba mar un yeelan jireen dhinacyada kale ah Ethiopia, Eritrea iyo waliba dhinaca Soomaaliya oo la aaminsan yahay in xitaa ay Soomaaliya qayb markaasi ku lahayd heshiiskii Djibouti iyo waliba Eritrea oo la aaminsan yahay in Soomaaliya baal dahab taariikhda ay kaga gashay in wadamo markaasi Afrika ku yaala ay iyadu hormuud u noqoto inay markaa heshiisiiso ciidamadan la tababaray ayaa waxa ay yihiin ciidamadii ugu tababarka wanaagsanaa tan iyo markii xukuumadan ee xilligan jirta tababar ciidamo markaasi loo qaadayay waxaase markaa loo aaneynaya ama dhinacyada ciidamada markaa ka faalooda ay markaa ku sababeeyeen inay tahay hal sabab taas oo ah in wadanka Eritrea uu yahay wadan markaa xaaladda dhanka nolosha ay tahay mid adag gaar ahaan goobaha lagu tababaranayo ay yihiin dhul dhagax ah iyo waliba sidoo kale dhul ay markaa cadceediisu kulashahay sida dhinacyada dadka aqoonta u leh Eritrea ay xaqiijinayaan ciidankan oo muddo badan markaa maqnaa ayaa la aaminsan yahay in guud ahaanba xilligan ay soo afjari doonto beenta iyo waliba propagandada ay fidinayeen dhinacyada mucaaradka waalidiin badan oo la doonaya in arrimo siyaasadeed markaa laga gudbo ayaa sidoo kale soo afjarmaya farxad waarta ayay sidoo kale u noqon doontaa in markaa caruurtoodii oo nabad qaba ay dalka ku soo noqdaan xilli mucaaradka warkii ay faafiyeen ay tani markaa u noqon doonto mid guud ahaanba markaa soo afjarta in xilligan mar dambe aan la isku halayn karin wararka iyo waliba propagandada ay fidinayaan dhinacyada mucaaradka halka madaxweyne farmaajona arrinkan uu ku helayo taageeradii ugu badnaa marka loo barbar dhigo dhinacyada kale ee xilligan xilka madaxweynaha u taagan xoguhu waxa ay markaa isa soo tarayaan oo ay yihiin kuwo markaa ciidamadan sidoo kale la filayo in la dejiyo aaga shirkole oo laga cabsi qabo haddii doorashada madaxweyne farmaajo uu ku guuleysto in mucaaradka ay sameeyaan qalqal amni taas oo xilligan la doonayo in ciidamadan markaa loogaga hortago xaalku waa uu ku culus yahay dhinacyo badan sidoo kale waxa uu markaasi xaalku yahay mid guud ahaanba markaas soo afjari doona dhinacyada mucaaradka waalidiin badan ayay markaa maanta la soo warinayaa in ay farxad weyn u tahay sidoo kalena ay ammaan kala duldhici doonaan madaxweyne farmaajo munaasabado ayaa la qabanqaabinaya magaalada Muqdisho oo ciidamadaasi lagu soo dhaweynayo guud ahaan marka ay dalka soo gaaraan balse
kuwa horudhacahay ee tiradooda markaa lagu sheegay 800 ee xilligan dalka markaasi soo gaaray ayaa iyaguna markaa la soo wariyay in guud ahaan maalmo fasax ahi la siin doono sidoo kalena intaa wixii ka dambeeya shaqooyinkooda ay u diyaar garoobi doonaan sida dhinacyo badan ay xilligan soo wariyeen xaaladda dhinacyada mucaaradka ayaa maanta quus taagan kadib markii ay indhahoodu ku arkeen in ciidamadii ugu horreeyey ama cutubkii ugu horreeyey ee ciidankii loo qaaday Eritrea ay indhahoodaba markaa ku arkaan sidoo kale magaalada Muqdisho waxaa markaasi guud ahaanba ay tahay mid dhinacyada xilligan shacabkeedu ay si weyn ugu mahadcelinayaan madaxweyne Farmaajo kadib beenta iyo propagandada laga faafiyay ciidankaasi oo ahaa in ay ka qayb galeen dagaalkii waqooyiga Tigreega ku dhaxmaray ciidamadii mucaaradka iyo waliba kuwa federaalka Itoobiya taas oo xilligan la aaminsan yahay in si awooda Itoobiya ay ku soo afjartay kooxahii mucaaradka ee markaa ka soo horjeeday xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ciidamada kale ee iyaguna markaasi imaan doona dalka wali lama xaqiijin goorta ay imaan doonaan balse waxaa soconaya diyaar garow ballaaran oo ku aadan xilligan sida lagu soo dhaweynayo ciidankaasi bil ka hor waxaa waddanka Eritrea safar dhuumasho ah ku tagay General Odawa Yusuf Raage oo la aaminsan yahay in uu u tagay qorsho ah sidii ciidankaasi uu guud ahaanba markaa ugu dhiirigelin lahaa howlahooda shaqo khudbado dhinacyo badan taabanayo oo warbaahinta qaybta ciidamada marka loo adeegsaday ee Odawa ayaa waxay ahaayeen in ciidamadan ay markaa qayb ka noqon doonaan xitaa dagaalka al-shabaab looga saarayo dhinaca iyo waliba goobaha ay Soomaaliya kaga sugan yihiin waxaase sidoo kale xusid mudan in guud ahaanba xilligan markaa dhaqdhaqaaqyada xitaa goobta ay ciidamadu ku sugan yihiin la taxadaray oo ay yihiin kuwa si weyn markaa loo ilaalinayo ugu dambeyn xogaha galka media soo gaaraya ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in ay markaa ciidamadan xilligan farxadda ka muuqata xitaa aan la yareysan karin balse dhulka ay ku tababarteen ay ahayd dhul ay markaa adag tahay in nolosha xitaa markaa lagu qaato guud ahaan Eritrea iyo Itoobiya iyo waliba dhinaca iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriirkooda ka dhaxeeya kaliya waxa ay markaa uu yahay in midba midka kale uu culayska ku saaro qaabka la doonayo sidii aragtida guud ahaanba markaasi loo soo afjari lahaa ee ah midda markaasi in beenta iyo propagandada laga faafinayay ciidamadan oo muddo badan iyagu markaa tababar ku maqnaa guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixinteennii gaarka ahayd ee aynu ku eegaynay ciidamada Soomaaliyeed ee muddada badan ku maqnaa waddanka Eritrea oo xilligan iyagu markaasi dalka dib ugu soo noqday gaar ahaan ciidamadan oo markaa muddo badan laga faafinayay propagandada oo maanta soo afjartay inta la faafinayay propagandada muuqaalkan sii sheergaray sidoo kale la sii wadaag saaxiibadaada kale oo ka mid noqo kumanaanka saaxiibka la ahay barteena YouTube ee galka media nabadgelyo